السلام عليكم سلوى جنالك بي أصحابتي جنالك بي 3 CS هرنا هذا هو صوت جنالك سبسكرايب نصر مركنا وحي شرحنا formation of differential equation qaabka u samaysanto differential equation ka oo waxay u samaysantaa ayadoo la derive keenay ordinaries oo meesha laga saarayo arbitrary constant example waxay kula mid tahay cos x plus b sin x markii oo differential la joogo haddii cos la derivo waxay la mid tahay minus sin la mid tahay haddii sin la derivona waxay la mid tahay cos oo caadi positive ah marka rulka maskaxda ku hay mar walba oo cos la derivo minus sin noqonay mar walba sin la derivona cos plus noqonay so marka haddaan derivno derive with respect to x so y hadda derivno wuxuu noqonay dy of dx equal a cos x derive waxay kula mid tahay minus a sin x plus b sin x derive waxay kula mid tahay b cos x marka kan wuxuu ahay first derivative y derive with respect to x first derivative sana soo baxday mar labaad aan deriveyna second derivative waxaa leenahay dy of dx d square of dx square equal minus a sin x haddii la derivo maadaama minus a wadata asalkeedii waxay noqonay minus a cos x positive haddii la derivona waxay noqonay minus b sin x marka labadan waxay wadaagaan minuskay wadaagaan converter ka saar waxay kula mid tahay d square of dx square equal minuska banaanka u bixi waxay la mid tahay a cos x plus b sin x intaan ya kula mid tahay intaan haddii previous ka raadino intaanay la mid tahay oo ahayd y marka y ku bedelo marka marka d square of dx square equal waxay kula mid tahay minus y marka gudaha soo geli waxay kula mid tahay d square of y of dx square plus y equal 0 equation meesha ku intaana soo